بسم الله الرحمن الرحيم دمان الصحابتيدا فانسكيغا ومد الصوماليات إذل مركو ugu horeyso waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaam calaykum salaan kadib dabcan waxa isweydiin doontaan barnaamijkan lakii ay caawo shacabka hortooda ay la soo fariisato muxuu noqon doonaa waxa weeye hadaan idin guud maro xalayba program TV-ga Universal ka baxay برنامجكاسي أو قف شعب أو فانسكي كميد أو لينكسكا يسو ديري برنامجكي مركا أن داوضي وحانقو أن صدي إن أن شعب كيجا وحيابا بدن أو أن أوجهي إن أن لو داقو برسه إنت أن أوجد الجرين وحن جعلان لها إن أد إلى داوتان برنامجكاسي حالي كبحي TV-ga Universal kooxda qooto ayaa iska ciirisay xidigta Lucky Xaaji Wacays taasoo bedelkeeda lacag rikoor ah ku soo xirgashteen xidigta leh taageerayaasha ugu badan ee Faadimiina bogga kooxda ku leedahay Twitter-ka ayaa la soo dhigay sawir agaasimaha kooxdaasi Abuukar Mahdi iyo Faadimiina oo isgarab fadhiya Bishaara Xaaji Wacays oo mar dambe la baxday Lucky Xaaji Wacays ayaa haatan bilaash looga heli karaa suuqyada Yurub ajiib arintan TV-ga aad ka daawateen baan waxaan rabaa in saddex qaybood aan u kala qaado koow waxaan u baahanahay riwaayada qooto sida ay ku bilaabatay in aan sharaxo labo waxyaabo aan ogahay balse aan la aamusnaa inaan ka hadlo saddex lacagtan TV-ga laga sheegayo inaan ka hadlo رواية قوتو waxa ay ku bilaabatay program waxa jira ciidireedii aan soo dhaafnay aniga aan daadihinayo TV-ga Universal ka baxay programkaasi kadib maamulka ugu sareeyo TV-ga Universal ayaa waxay iga codsadeen in aan wada kulanno soo wada cashayno kadibna ay mahadsanid meeshaasi ugu yiraahdaan waa ka aqbalay mahadsanid kadib casho kadib ayaa waxa la iga codsaday in maadaama shacabkii ay ka heleen barnaamijkii aan u daadihinayay ciida qosol uu ku jiray maad iyo madadaalo in riwaayad la sameeyo ay isoo bandhigeen anna aan ka aqbalay riwaayadaasi waxaan uga aqbalay sharuud la'aan taasoo ay ahayd in sponsor marka ugu horeyso lagu raadinayo hay'adaha iyo xayeysiinayo wax walba ha noqotee أنا أنك أقبلي أنا فيرينيو تحجلينيو شعبك وحي أباهيهن يدو دور يلا باتنسانو بربر يلي باتو ودنك وكتري أو وح مددالو يو وعي جلين هبيراتي أي سنجرين وحد شراء وحيابا بدن أن أجهي بس أن لا أمسنا TV-ga Universal وحال الله فرطي in lagula dagaalo hadba markaasi qofka ay xurgufi ay kala dhaxayso waxa dhacda in dadka la isku diro la bahdilo maskaxda laga dhaawaco loo hanjabo saxaafada anshax bay leedahay sharuudo qofka lagu qaadan karo qofka saxafiga ayaa jira geedaha waxa jira geed aan la goyn karin mise aan la taaban saxaafada in muddan ka soo shaqeynayay heer TV iyo heer idaacad intaba TV-ga Universal marka aan anigu TV-ga aan ka shaqeynayay ma uusan jirin waxaan uga gol leeyahay barnaamijkan hadda aan idin tusay ee ka baxay TV-ga Universal xalay wuxuu ka mid yahay anshax darrada ay caadeysatay in ay ku dhaqanto TV-ga Universal shakhsigan hadda aad maqlaysaan codkiisa waa shakhsi baraha bulshada ee social media-ha caanka ah dumarka aflagaadeeyo gorgrodahooda daruucdooda ka hadla oo aanan noqon karin ruux saxafi ah qofkaasi anshaxa saxaafadda banaanka uga baxay ma noqon kartaa in TV-ga ee bulshada intaasoo kun oo qof ay daawato in la soo hor istaajiyo hadaadan raalli adiga adan ka ahayn
shakhsigan hadda codkiisa aad maqlaysaan waa shakhsi in muddo ah iraadsanayay oo baraha bulshada igu aflagaadeynayay intaa uu raadinayay mar inaan u soo jawaabo laakiin anigu waa iskala weynaa maxaa yeelay aqoon uma lihi isna aqoon ima laha marka sababta kaliftay markii Universal TV xurguf ayna dhaxmartay in ninka isaga ah ay u jeedaan daciifka ah inay iisoo adeegsadaan waa waxa ay caanka ku tahay damiir xumadooda iyo dadnimo xumadooda iyo daciifnimadooda TV-ga Universal waxaan ogahay oo mas'uuliyiinta Universal ay ii sheegeen aniga laki ah TV-ga in uu yahay meel ay kaga cadgoosan karaan qofkay doonaan sumcadda qofkane ay ku dili karaan balse waxay hilmaameen TV-ga Universal in adduunkii uu hormaray oo shacabka aysan ku xirnin TV oo kaliya qofkay ku gardaroodaanna social media inuu soo hor istaagi karo runta ka hadli karo wixii jirane uu shacabkiisa u sheegi karo arintan xalay TV-ga Universal programka ay ku soo qaateen oo ah in shaqada la iga eriyay waxaan ka dhihi lahaa marka ugu horeyso qofka waxa shaqo laga eriyaa marka uu ku shaqeeyo qoto waxaan ugu shaqeynayay lacag la'aan sharuudna kumaanan xirin taasna waxa igu kaliftay shacabkayga Soomaaliyeed ee daawada musalsalada ajnabiga ah in ay ka marmaan oo afkooda hooyo ruwaayada ku baxayo in ay daawadaan baa igu kaliftay in aan lacag la'aan ugu shaqeeyo qoto sidaas ay tahay ayaan waxaan ogahay TV-gan Universal ruwaayadan qoto jimco waliba shacabka Soomaaliyeed ay daawadaan in ay ku helaan sponsoro xayisiimo ruwaayada qoto ku jiraan waxa u si dheer YouTube-ka lacagaha laga helo balse oo waligii ana waxba ana weydiin oo aniga lacag aan ugu dari jiray waxaan ula jeedaa lacag ugu dari jiray aniga ayaa shidaalkayga dharka aan xiranayo koofeerkayga waxa walbo ana iska dhiibi jiray waligii lacag kamaanan qaadan tan xigta baahi Universal TV maanta la iiga eriyo ima hayso stuudiyaha TV-ga Universal studio ka fiican baan leeyahay platform waxa ii ah YouTube iyo social media marka anigoo og Universal TV in ay dhigmiirata yihiin dhalinyarada u shaqeysa oo ay ka dhaadhiciyeen haddii aad ka soo muuqato TV-ga Universal magacbaad ku helaysaa mushaar ha u qoraano xaqoodana ha siiyaano waxaan kaloo la yaabay meel ay iga soo galaan marka ay waayeen bay waxay yiraahdeen oo dacayad la iga dhigay bishaara la oran jiray oo lakibay la baxday bishaarana waa la yiraahdaa lakina waa la yiraahdaa iyo waalidkayba ila baxay ceebna maaha Soomaali walbana wuxuu leeyahay laba magac qof waliba oo Soomaali ah marka magac bay la baxday miyay noqon kartaa aflagaado macnaheedu waxay tahay in aan ceeb ka saliin aan ahay hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa qoto dhaqaale kamaanan helin magacna kamaanan helin horan uga magac dheeraa waxaan ka helay oo kaliya oo la iga siiyay warqadaas si fiican ugu jeedaan warqadaas oo kaliya ayaan ka helay qoto warqadiina waa taa nabadeed